nolosha wanaagsan wadada kaliya ee lagu helo farxadda deganaanshaha iyo ku raaxaysiga nolosha sida uu leeyahay Allah waa iimaan iyo camal wanaagsan. alle wuxuu quraanka ku leeyahay qofkii camal wanaagsan la yimaada rag iyo haween isaga oo muumin ah waxaan noolanaynaa nolol wanaagsan waxaana ku abaalmarinaynaa ajirkooda waxa ugu wanaagsan ee ay sameeyeen. Allah wuxuu leeyahay waxaan ku noolanaynaa nolol wanaagsan haddii uu la yimaado camal wanaagsan isaga oo muumin ah. waa balaqad uu ballan qaadayo boqorka adduunka oo dhan iska leh gacmihiisa ay ku jirto nolosha iyo geerida. haddii aadan haysan $1 xitaa alle wuxuu kugu ballan qaadayaa nolol wanaagsan oo raaxo leh xaalad walba oo aad ku sugan tahay meel walba oo aad joogtid iyo si walba oo aad tahay. haddaba waa maxay iimaan raaxo iyo macaan sidee ah bay leedahay iimaanka iyo camalka wanaagsan? waa maxay iimaan waa in carabka looga dhawaaqo qalbiga oo laga rumeeyo iyo xubnaha oo laga sameeyo wixii la rumeeyay waxayna ka kooban tahay 6 arrimood. 1 rumaynta Allah subhanahu wa ta'ala malaa'igtiisa oo aad rumaysid kutubtiisa oo aad rumaysid rusushiisa oo aad rumaysid maalinta aakhiro oo aad rumaysid qadarka khayrkiisa iyo shartiisa oo aad rumaysid. macaanka iimaanka Bilaal ibn Rabah mu'adaankii rasuulka ayaa la weydiiyay sababta uu ugu adkaysay oo ugu sabray iimaankiisa cadaabta lagu caday banaanka Maka ee kulul. wuxuu ku jawaabay waxaan isku daray xanuunka cadaabta iyo macaanka iimaanka waxa kor noqotay macaanka iimaanka taas oo macnaheedu yahay in macaanka iimaanka hadii uu qofka dhab ahaan u dhadhamiyo inuu wax waliba siinayso. sixrolayaashii Fircoon markii ay macaankii iimaanka heleen waxay ilowsiisay masiibada adduunka xitaa in nafta laga qaadayo. nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam gabadhii guriga albaabada u xiratay si ay xumaan ula samayso wuxuu ugu jawaabay ilaahay baan ka magan galay wuu ka diiday kadibna xabsiga ayuu ka doortay inuu xumaanta sameeyo. taasina waxa gaarsiisay macaanka iimaanka waxa laga dareemaa qalbiga sida cuntada looga dareemo carabka. qofkii dhadhamiya macaanka iimaanka wuxuu helay jannadii adduunka sida uu yiri Sheikh Ibn Taymiyyah markii lagu xiray xabsiga. jannadaydu waxay ku taalaa laabtayda qalbiga cadowgaygu maxay igu samayn karaan haddii la ii xiro Allah iyo cibaadadiisa ayaan waqti u helayaa. haddii la ii dhoofiyo waxay ii tahay safar haddii la ii dilo waa shahiidnimo. sideen u macaansada iimaanka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay 3 shay qofkii ay ku jiraan wuxuu helay macaanka iimaanka. 1 in Ilaahay iyo rasuulkiisa ahaadaan kuwa uu ka jecel yahay wixii ka soo haray oo dhan. 2 inuu jeclaado qof una jeclaado Ilaahay dartiis. 3 inuu naco inuu dib ugu laabto gaalnimo sidoo inuu necab yahay in lagu turo naar. Xasan al-Basri wuxuu leeyahay 3 ka raadiyay macaanka iimaanka salaada dhikriga iyo akhrinta quraanka. sidoo kale waxyaabaha lagu helo macaanka iimaanka waxaa ka mid ah alla weydiiso inuu ku siiyo macaanka iimaanka. iska ilaali dambiga sababtoo ah dambigu wuxuu nusqaamiyaa iimaanka. habeenkii inta aad seexanin isxisaabi ku fakar abuuritaanka Allah cirka iyo cajaa'ibta dhulka. haddaba muuqaalkan haddii uu soo gaaray si gaarsiiyo walaalaha kale